kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena qodobada barnaamijkeena ku eegi doono waxa qayb ka ah hogaamiyaasha Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga oo safarkii ugu horeeyay ku tagay magaalada caasimadda ee Kiev ee Ukraine tan iyo markii duulaanku uu ka bilowday. haddaba goobo muhiim ayay booqdeen waxaana ay la kulmeen hogaamiyaha waddankan. falanqeyn iyo faaqidaad ayaanu ku sameyn doonaa sababta safarkooda iyo ballanqaadyada ay u sameeyeen. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ra'iisul wasaaraha waddanka Jarmalka Olaf Scholz iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi ayaa waxa ay gaadheen magaalada caasimadda ee Kiev iyagoo si wadajir u muujinaya taageerada ay u hayaan Ukraine oo wajahaysa duulaanka Ruushka iyo cadaawad weyn. waa daqiiqado muhiim ah, waa fariin midnimo ah oo aan u direyno dadka reer Ukraine, ayuu yiri madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron kadib markii tareen gaar ah oo habeennimadii xalay ay ka bixiyeen mas'uuliyiinta Ukraine. saddexdan qof ayaa lagu qaaday tareenka waxaana la geeyay xarun ku taala magaalada caasimadda ee Kiev saakay. waxaa lagu wadaa in maanta ay la kulmaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda waxaana ay kulan la qaateen madaxweyne Volodymyr Zelensky. booqashada hogaamiyaasha Yurub waxay qaadatay toddobaadyo inay abaabulaan halka saddexdooduba ay la kulmeen dhaleeceyn uga timi Kiev oo ku saabsan taageerada la arko inay tahay mid liidata iyagoo u garbinaya dhanka Ruushka sida ay ku eedeeyeen Ukraine. saddexdan hogaamiye waxa ay ku soo beegmaysaa booqashadooda iyadoo Ukraine ay sii wado in ay ka baryado ama ay weydiisato xulafadeeda reer galbeedka inay siiyaan hub culus oo dheeri ah iyadoo doonaysa in ay ka hortagto horumarada Ruushka iyo goobaha uu qabsanayo oo ay ku yaala bariga iyo koonfurta waddanka Ukraine. ku dhawaad 4 bilood oo dagaal ah ayaa ugu dambeyn waxay u muuqataa in awood badan ay helayaan Ruushka oo ay dhul ballaaran qabsanayaan. Moscow hadda waxa ay si isdaba joog ah uga soo xiganaysaa ama ay ugu soo xoogaysanaysaa Ukraine waxaana isugu keentay dhammaan ciidamadeeda Ukraine waana ay rabtaa ama waxa ay rabtaa in ay guud ahaanba bariga ka saarto waddanka Ukraine ay la wareegto. waxaa sidoo kale la soo warinayaa in lagu soo daabulay saraakiil badan oo uu sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada Ukraine oo ku sugan magaalada koonfureed ee Mykolaiv. waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay guul ka gaari doonaan kuwa Ruushka haddii la hubiyo ama la siiyaba hubka saxda ah ee ay doonayaan. Kiev ayaa dhaleeceysay Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga waxaana lagu eedeeyay in ay iyagu ay ka lug jiidanayaan taageeradooda ka dhanka Ruushka iyagoo ku eedeeyay in ay ka gaabiyeen bixinta hubka iyo in ay sidoo kale ay xurriyadda amniga iyo damaanad qaadka Ukraine ay iyagu damaanad qaadaan. warbaahinada caalamiga ayaa warinaysa in mas'uuliyiin ka tirsan labadan dowladood waa saddexdan dowladood ee Ukraine ay u ballan qaadeen mar kale taageero iyo garab istaag iyaga oo ay hadda wararka naga soo gaaraya Kiev ay ku waramayaan in la filayo in wax badan ay miiska saaraan inta lagu guda jiro wadahadalada saddexdan mas'uul iyo hogaamiyaha Ukraine. sida iska cad dagaalku waxa uu si weyn ugu soo muuqan doonaa wadahadaladan waxaana jiri doono dood ku saabsan suurtagalnimada hub badan oo la keeno iyo xaaladda musharaxnimada Ukraine ee midowga Yurub ayay leeyihiin wararku. diiradda wadahadalkani waxa ay imaanaysaa xilli labada dal ee Jarmalka iyo Faransiiska ay dhaleeceeyeen ama dhaleecin ay kala kulmeen wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine iyo qaar ka mid ah wadamada bariga Yurub ee NATO. asal ahaan ma aysan qaban wax ku filan si ay u taageeraan Kiev ayay leeyihiin. tani markii dagaalku uu bilaabmay ayaa la raacinayaa, laakiin waa la arki doonaa sida saxda ah waxa la bixin karo. waxaa muhiim ah in sidoo kale la fahmo in Jarmalka iyo Faransiiska labaduba yihiin deeq-bixiyaal waaweyn wixii ay reer Yurub horey u siiyeen Ukraine xagga hubka ah in ay hadda diyaar u leeyihiin in la helo hub culus oo dib loogu riixo ama dib loo soo celiyo dhulka ka lumay Ruushka ama Ukraine weeyaane si ay ula wareegaan bariga waddanka Ukraine. midowga Yurub si ay go'aan ugu gaaraan dalabka xubinimada Ukraine ayaa sidoo kale safarka qayb ka noqon doono. waxaa sidoo kale la gorfeyn doonaa oo safarkan ku soo beegmaya maalin ka hor inta aan la filanin guddiga fulinta midowga Yurub in ay ka soo tala bixiyaan in la sii ambaqaado doonista Ukraine ee ku beerista midowga Yurub kaas oo la filayay in madaxda midowga Yurub
ay ku ansixiyaan shir madaxeedka Brussels ka dhacaya toddobaadka soo aadan ka hor inta aan la gaarin Juun 29 ilaa 30 shir madaxeedka wadamada NATO oo xilligaas ka qabsoomayo magaalada caasimadda Madrid ee dalka Spain. Faransiiska ayaa hadda waxa uu hayaa hoggaanka wareegga ee Midowga Yurub, waxaase la rajeynayaa in ay ogolaadaan dalal badan oo Yurub ka tirsan in Ukraine ay ku soo biirto, balse waxa adkaan doonto in durbaba ay ku biirto iyadoo waqti dheer ama sanado ay qaadan doonto. Talaadadii la soo dhaafay inta lagu guda jiray safar ay ku tageen dalalka deriska la ah Ukraine sida Romania iyo Moldova, Macron waxa uu sheegay fariin taageera inuu u sido waa in loo diraa Ukraine ka hor inta aysan madaxda Midowga Yurub iyo dawladdu aysan ku yeelan go'aan muhiim ah kulankooda Brussels. Waxaan ku jirnaa daqiiqadaan u baahannahay inaan dirno calaamado siyaasadeed oo cad annaga reer Yurub ahaan. Annagu Midowga Yurub ayaan nahay, waxaanu ku wajahanahay Ukraine iyo dadka reer Ukraine, ayuu yiri mar kale. Macron waxa uu si qoto dheer ugu lug leeyahay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu riixayo xabad joojinta Ukraine, taas oo ogolaanaysa wadahadal nabadeed in mustaqbalka ay wada galaan Ukraine iyo Ruushka. Wuxuu wadahadallo joogto ah la yeeshay madaxweyne Volodymyr Zelensky, wuxuuna dhowr jeer taleefanka kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin tan iyo markii Moscow ay bilowday duulaankeeda dhamaadkii bishii Febraayo, kadib markii Ruushka uu bilaabay si iskiis inuu dagaal u qaado uguna magac daray howlgal military oo gaar ah, isagoo ku andacoonay ujeedadiisa ahayd in hubka laga dhigo Naaziyiinta ku nool Ukraine deriskeeda iyo guud ahaan dalalka kale. Waxaana Ukraine ay bilowday iska caabin weerar hubeysan oo lagu qaaday caasimadda Kiev bishii Maaj. Si kastaba ay noqotaba, wixii xilligaasi ka dambeeyay Ruushka waxa uu bedelay ujeedooyinkiisa iyo xeeladiisaba, isagoo hadda isku dayaya inuu sii adkeeyo dhulka uu ka haysto bariga iyo koonfurta waddanka Ukraine iyo inuu qabsado wax badan oo dhulkan ku yaala ama ka tirsan bariga, kuwaas oo ciidamada dhulka ay taageero iyo duqeymo ay barbar socdaan ay ka wadaan dhankani. Dagaalka ugu weyn ee toddobaadyadii la soo dhaafay waxa uu ka socday bariga magaalada Severodonetsk oo Ukraine ka tirsan, gaar ahaan gobolka Luhansk ayay ka tirsan tahay magaaladan, waxaana ka dhacay dagaalo adag iyo duqeymo culus. Dhanka kale, dagaalka Ruushka waxaa ka hadlay siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin badan magaalooyinka Ukraine, gaar ahaan magaalada la yiraahdo Irpin sida Buja ka hor waxay calaamad u noqotay arxan-darrada iyo dhibaatada iyo dagaalka Ruushka ee Ukraine. Rabshadaha aan macnaha lahayn, ayuu leeyahay sarkaal ka tirsan waddankan. Ra'iisul wasaaraha waddanka Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu dhankiisa sheegay booqashada uu ku tagay Kiev, isagoo intaa ku daray in dagaalku uu yahay in la joojiyo. Irpin iyo Buja waxay wajaheen waxaan loo dulqaadan karin. Waxaanu daawanay muuqaalo adag oo argagax leh oo aanu indhaha ku siin karin inaad sii daawato. Waxay calaamad u noqdeen labadan magaalo Irpin iyo Buja naxariis darrada aan la qiyaasi karin ee dagaalka Ruushka uu ku qaaday waddanka Ukraine. Rabshadaha macno darrada ah, Scholz ayaa ku soo qoray Twitterkiisa burburinta naxariis darrada ah ee magaalada waa digniin, dagaalku waa in la soo afjaraa, ayuu yiri, isaga oo digniintaas u diraya Ruushka iyo sidoo kale dhinacyada kale ee taageera. Guud ahaan saaxiibayaal, halkaas aynu kusoo gabagabaynaa barnaamij suuraadkeenna tan iyo qaybta kale intaanu ku kulmi doonno. Nabadgelyo.